kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaasha ciidanka gobolka Gedo oo looga yeeray Muqdisho sababtu maxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la sugaya shakhsiga noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir xildhibaan diiday qorshe Fahad Yaasiin oo u bandhigay oo hadda banaanka keenay safiirka Imaaraadka oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiis sababtu maxay tahay warkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaa warkeena janaalka xogta idinkugu soo gudbin doona hadaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega shaarkii iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo taliyaasha ciidanka ee gobolka Gedo ayaa waxaa loogu yeeray gudaha magaalada Muqdisho warbaahinta ayaa waxaa heshay xog kooban oo sheegaya in maalmaha soo aadan si degdeg ah looga yeerayo inay soo galaan Muqdisho taliyaasha ciidamada ku sugan gobolka Gedo xogta ayaa tilmaamaysa in saraakiishaasi ay markii hore ay ka heleen mas'uuliyiin sarsare in ay tagaan halkaasi waxaana haatan la sheegayaa in Muqdisho dhawaan ay soo gaari doonaan saddexda taliye ee looga wacay inay yimaadaan magaalada Muqdisho ee caasimadda ayaa kala ah taliyaha militariga gobolka Gedo Warfaa Sheekh Aadan Farole taliyaha booliska gobolka Gedo Cabduqaadir Biixi taliyaha Nisa ee gobolka Gedo Bakaal Kooke saraakiishan ayaa ahaa kuwii oo mar walba u shaqeyn jiray Farmaajo isla markaana go'aamada filla Soomaaliya ka soo baxa u dhaqan gelin jiray xogta ayaa tilmaamaysa in ay markay yimaadaan taliyaashaasi loo yeeray xilka laga qaadi doono kolka ay markaasi ku soo xaroodaan Muqdisho sida muuqato dowlad goboleedka Jubbaland ayaa mar kale gacanteeda dib ugu noqon doono gobolka Gedo oo muddo 4 sano ka badan ka maqnayd waxaana haatan u muuqanaysa in madaxweynaha Soomaaliya uu si weyn ugu dadaalayo in gobolkaasi loo madax banaaneeyo hogaamiyaha Jubbaland ayaa haatan waxa uu muuqanaya in hamigii uu lahaa uu u rumeeyay madaxweynaha Soomaaliya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa dowladda hore uga codsaday in gobolka Gedo gacantooda mar kale lagu soo celiyo iyadoo madaxweynaha maamulkaasi uu sheegay in ay muhiim u yahay gobolkaasi dhanka galana go'aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee la sugayo shakhsiga noqonaya gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho waxaa soo idlaaday wadatashi maalmahan socday oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kala ogaanay shakhsiga u qalmo inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir qorshaani waxa uu ahaa markii hore in mar kale la kala reebo labada jago ee gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa Muqdisho oo isa saaran hal qofna loo magacaabo balse waxay u badan tahay in sidiisa loo daaynayo odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale kaadiriinta ka agdhow madaxweynaha iyo sidoo kale la taliyaashiisa ayaa soo dhameeyay wadatashiyadii uu la lahaa shakhsiga ee isleeyihiin shaqadan uu ka soo bixi karaa waxaa la raadinayaa qof wadciga jira caasimadda Muqdisho iyo xaaladda adag ee dadka ku jiraan wax ka qaban karo isla markaana si weyn uu baadigoobay madaxweynaha sida ay heshay warbaahinta wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho loo magacaabi karo xildhibaan Maxamed Abuukar Cali Jacfar oo kamid ah baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya xogta ayaa sheegaysa in Jacfar loo arko mid wax badan ku soo kordhin kara xilkaas isla markaana kartidiisa la hubiyay awgeed uu qaban karo jagada oo hadda uu ku fadhiyo Cumar Filish oo saaxiib la ahaa Farmaajo iyo maamulkii nabad iyo nolol ee dalka ka jiray tartanka adag ayaa loo galay xilkaani iyadoona Jacfar loo saadaalinayo in loo magacaabayo ayaa haddana waxaa loolamaya Axmed Daaci Generaal Yuusuf Indhacde Yuusuf Madaale oo xisbiga UPD ka tirsan iyo siyaasiyiin kale macadda wixii dhici doona iyo go'aanka ugu dambeeya uu qaadan doono xasan sheekh maxamuud xilkaasi balse waxaa la saadaalinayaa ila wareedyada qaar ay sheegayaan in duqa Muqdisho loo magacaabayo Jacfar isla markaana dooqa koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu yahay dadka ayaa si weyn u hadlaya go'aankan uu qaadanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Jacfar ayaana kamid ah shakhsiyaadka sida weyn uga wax qabtay degmooyinka gobolka Banaadir gaar ahaan Howlwadaag iyo sidoo kale degmada Daynile Jacfar oo ah shakhsi firfircoon isla markaana hooshiisa si weyn uga soo baxayo
ayaa haddii gudoomiyaha gobolka banaadir loo magacaabo waxa uu noqon karaa shaqsi si cad howshiisa uga soo baxayo. Maxamed Abuukar Cali Jacfar ayaa waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka baarlamaanka Soomaaliya haatan ku jiro uguna saameynta badan. Jacfar ayaa waxa uu intii uu ahaa gudoomiyaha degmada Daynile waxa uu soo qabtay waxqabad aad u fara badan, iyadoo bulshada degmadaasi ay si weyn ay u aaminsan yihiin gudoomiyihii hore ee degmadaasi. Xildhibaan Jacfar ayaa waxa uu kale uu ka mid yahay shakhsiyaadka kartida iyo go-aanka ka qaadanayo dadka dhibaateynaya shacabka ku nool magaalada Muqdisho, waana shakhsi mudan in loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Haddii Jacfar loo magacaabo gudoomiyaha gobolka Banaadir, dadka reer Muqdisho ayaa dhibaatooyin fara badan iyo tacdiyo kala duwan oo hore ula kulmayeen ka bixi doona, maadaama shakhsi yaqaana damiirta shacabka uu yahay. Dhanka kalena xildhibaan diiday qorshaha Fahad Yaasiin uu soo bandhigay islamarkaana banaanka keenay sirta taliyihii hore ee NISA. taliyihii hore ee booliska gobolka Abay Generaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan islamarkaana hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay sheeko dhexmartay isaga iyo Fahad Yaasiin. Generaal Mahad ayaa si cad u sheegay in nabadii nolol ay ku amartay in uu ka qayb noqdo burburinta koonfur galbeed markaasi ka jirtay uu Shariif Xasan Sheekh Aadan hogaaminayay. Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan ayaa sheegay in markaasi ka hor yimid in Shariif Xasan la hor istaago maamulkaasina la burburiyay, isagoona sheegay in uu qadiyada uu horey u aaminsanaa welina uu aaminsan yahay. Fahad Yaasiin ayaa u sheegay in uu ku wargeliyay nidaamka jira iyo maamulka deegaanka uu difaacayo, balse uusan Shariif Xasan xabad uga raacdeyneynin dhammaanba deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaana xildhibaan Mahad uu si cad u tilmaamay in koonfur galbeed Soomaaliya ay tahay maamul dhisan, islamarkaana cid kasta oo dhibaateynaysa maamulkaasi ay ka hortegi doonaan sida uu sheegay xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan. Xildhibaan Taliya Shub ayaa haatan waxaa laga sugayaa sida uu u difaaci doono maamulka uu hogaamiye Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen oo haatan mooshin ay ka diyaarinayaan qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamulkaasi. Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa culaysyo aad u fara badan waxa uu ka haystaa qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed, kuwa oo si weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedkiisa iyo qaabka uu la dhaqmayo bulshada deegaanada maamulkaasi. Waxaa wararku ay sheegayaan in weli Taliya Shub uu ka amar qaadanayo Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen. Dhanka kalena daawadayaal, safiirka Imaaraadka Carabta ayaa weerar afka ku qaaday farmaajo. Imaaraadka Carabta u fadhiyay Muqdisho Danjire Maxamed Axmed Al Cusmaan Xamaadi ayaa goobta lacagta ku wareejiyay ka sheegay hadal u muuqday inuu ku weerarayo habka maamulka nabadii nolol. Hadalkiisa ayuu Danjire Xamaadi u muuqday mid dagaal siyaasadeed oo adag kala kulmay madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu hogaaminayo, wuxuuna safiirka yiri lacagta xukuumadii hore si qaldan nooga haysatay ayaan haatan shacabka u qaybinaynaa. Tani waxay cadeynaysaa in 9.6 milyan ee hadda lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya ay tahay lacagtii horey Abriil 2018 ay u qabatay dowladda Soomaaliya. Sida la filanayo, qorshahani waxa uu yahay Imaaraadka inay dib u soo celiso xiriirkeeda foga, waxaana qof walba ay hadlaysaa xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya mar kale dib u soo laabtay. Guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal wanaag inta haddaba daawaday. haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, wararkeena leega, shaarkii, commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.